ووزارة قبته وحان آمنسنها إنيسان شرف قارة أيسان أهين أي تهي مسؤولية وين ووقت أدق كسو آدي ووقت إيه مسؤولية ده أما واجباتك دلك ويا لنا واجباتك بديه وقت ياس أدق وحرجيني انت بدن وزارة كسو شقيي أما ماليا كسو شقيي كلمة دوي أيانا ذيك سلا النجا ولي أنا ما يعي واحد هين وما ذيك النوا ودجفنا وزارة قاشانديكا تلياشا تلسك عيدا كحوق دلك الصوماليات هي عيدا ككوا قلب كالسلية ومد الصوماليات النوا ودجفنا وحنويا الله شغرنتي أدق وقرن وأباهن نفهرنمو وباهن إنا نسكدو القانو عدو أدونكي نسوك هالميي ونقد دالي ربو وسيدي يتمنصنو سند والو عاوين كرا لبا سنة والو عاوين كرا شن هدي ماكسيموم كي قارت والو عاوين كرا لكن سيدي يتمنصنو إن أن قاشان دي جيني أما عيدا كيني ولي أن عصاني إنو عيدا مكاله أما دلك إنو جوغان ciidamada kaalmeynaya waxaad moodaa inaan dunidu nagu sii fiirsan karin haddii ilaahay yiraahdo anoo u mahad celinayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha shaqadan adag ee naloo igmaday waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu fiican oo ummadda Soomaaliyeed ee raalli ka tahay oo tabarteena ah inaan u qabanno haddii ilaahay yiraahdo annagoo iskaashanayna arrinta amnigu waad aragteen wiil macawisleeya ayaa looga maarmi waayey dad baa looga maarmi waayey bulshada iska badaa wasaarad gaara ama talis gaari shaqo keligiis uu qaban kara maaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa uga baahannahay inay garab qabtaan maanta marka oo aan si rasmi ah ula wareegayo hoggaanka wasaaradda gaashaandhigga waxaan is xusuusinaynaa in difaacu yahay halbowlaha jiritaanka qarannimadeena waa waajib qaran oo nafaraya inaan u midayno awoodeenna hantideenna nafteenna iyo caqligeenna si aan u xaqiijinno nabadgelyo buuxda in Soomaaliya ay hesho difaac ay hesho iyo jiilasha soo socdana mustaqbal ay ku noolaadaan oo ay nabad ku noolaadaan inay helaan wasaaradda gaashaandhiggu waa hay'adda mas'uulka ka ah difaaca madax bannaanida dalka ayadoo adeegsanaysa dabcan ciidankeeda ilaalinta sharafta shacabka iyo suurtagalnimada danaha qaranka gudaha iyo dibadda waa gaashaanka difaacaya jiritaankeenna midnimadeenna iyo hannaankeenna dowladnimo ee Soomaaliyeed qaran walbana waxaa lagu qiimeeyaa dunida hadda joogta awoodda ciidankiisa tayada hoggaankiisa agabka uu haysto iyo shacabka heeganka u ah shacabka deegaankaas ama dalkaas ee heeganka u ah inay garab istaagaan muddada aan joogno insha allahu tacaala waxaan xoogga saari doonaa in la dhammaystiro oo aan garab u noqonno ciidankeenna sidii loo dhammaystiri lahaa khawaarijta isku soo bahaysatay qarannimadeenna dul taagan horumarkeenna dul taagan muddadaas ilaahay idankiis ilmahaas yaryarka waxaan goobjoog u ahaa aniga markii 2011 muqdisho laga saarayay taliyahana sugidaan ahaa waxaan safka hore uga jir dagaalkaas waa ilmo yaryar oo aad aan isku naqaano oo aan rajaynayo ilaahay idankiis inaan annagoo caalamka saaxiibadeena kaashanayna in ay muddo kooban nagu dhaafaan waxaan xoogga saari doonaa dadka Soomaaliyeedna waa buruuf gareeyeen arrintaas 2-3 sano ka hor ama 2 sano iyo bar ka hor halkaana laga dhaqaaqay meesha ciidanku joogaanna waa loo yahay baanta meel fiican bay joogaan waxaan xoogga saari doonaa wixii dib u habeena oo horay u socday inay sii dhammaystirmaan oo aan soo saaranno ciidan ku suntan tayo
aqoon iyo anshax lagu hadlayn karo amniga dalka, gudan kara waajibaadkooda keligood, ciidamada kale ee nala joogana aan leenahay waa isku fillaannae markii aan gaarno halkaas waan mahadsantihiin. waxaan xoojin doonaa wasaaradda difaaca inaan barnaamijkeeda iyo reformkeeda inaan qayb ka ciyaaro. waxaan hirgelin doonaa qorshaha horumarinta amniga qaranka security sector development plan oo si buuxda qorshahaasoo madaxweynuhu dalku ka daahfuray magaalada New York 21 December 2023. waxaan xoojin doonaa xiriirka shacabka iyo ciidanka u dhaxeeya. sidaas si la mid ah waxaan xoojin doonaa xiriirka dadka caawiya dowladaha caawiya ciidankeena oo aan dhegaysan doonaa konseynkooda iyo talooyinkooda ku saabsan muddadii ay ka shaqaynayeen ciidanka. difaacu waa shaqo wadaniyadeed, waxaana lama huraan ah in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto muhiimadda ciidanka qaranku ama ciidanka xoogga dalku uu leeyahay. qof kasta oo Soomaaliyeedna meelu joogaba waa inuu ku tabaruca maalkiisa, maskaxdiisa iyo si halgankaas aan kugu jirno dalkeennu inuu soo ceshado awooddiisii uu u hirgalo. ugu dambayn waxaan ballan qaadayaa inaan si daacadnimo oo hufnaan leh, wadaniyeed leh aan u gudan doono waajibkeenna qaran. waxaan rabaa inaan xuso dad hal nin oo ka mid ah markii lay magacaabay asagoo keligiisa magaalada Nuur Dugle qori aakay wata ka dabaaldegay oo yidhi ninkaas waa soo dhawaynaynaa reer Nuur Dugle inkastoo laga Jalalaqsi iyo Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Mudug iyo Galgaduud iyo gobollada dalkoo dhan ilaa Khaatumo arrintaas laga soo dhaweeyey. haddana waxaan rabaa inaan xuso Sheekh Cali Muuse Cusmaan oo reer Nuur Dugle mujaahidiinta halkaas dagaalka uga jira oo kaligiis qori aakay inta istaagay oo beesha Kabaala oo kaligiis inta qori la istaagay kaligiis riday oo dabaaldegay. waxaan ku leenahay Sheekh Cali iyo ragga la midka waxaan kugula jiraynaa kuu kaalmaynaynaa inaad deegaankaada difaacatid, khawaarijtana aysan fareed ama amni darro ku noqon Nuur Dugle iyo deegaan kastoo Soomaaliyeed. waxaan rabnaa ciidanka xoogga dalku wuxuu matalaa xoogga dalka la yidhaahdaa in ciidan Soomaaliyeed oo Soomaali ku kalsoon tahay oo aan qabiil lagu tilmaamin oo haybta ciidanka leh, caqiido leh. ciidanka Suudaan ayaa tusaale loo soo qaadan karaa. waxay noqdeen unugta keliya ee dowladnimadii hadda haysa. ciidan 100 sano jiray, isku kalsoon, yacni dalkoodii difaacday ka difaacday weeraradii lagu soo qaaday mu'assasaadka. ciidanka marka qabiil maahan, ciidanku maahan koox gaara, ciidanku deegaan gaara maahan. ciidanka qaranku qof kastoo Soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafid ayaa la rabaa inuu garab istaago. horeyna maalmo dhexdaas waa u sheegnay siyaasaadka la isku hayo ha laga dhex saaro ciidanka. weliba waxaan la fadhiisanaynaa ragga saaxiibanayana mucaaradka waa la fadhiisanaynaa si aan u dhegaysanno haddii talo ciidanka lagu hagaajinayo ama tale ay hayaan, si aan isku barbar uga soo wada jeesanno hadday dhab ka tahay in khawaarijta dalka laga nadiifiyo. waxaan soo dhaweynaya, waxaan rabaa inaan salaamo ciidanka dhufaysyada hore ku jira ee Soomaaliyeed ee runtii duruufta adag oo hadda wasiirkii iga horreeyay uu sheegay ku shaqaynaya. muddo dheer dalkan halkan ka qaaday, aan ognahay mar ka mida mararkooda inaysan kaba haysan 2011 dhar qaadiyo militariga aysan haysan, tuutihii oo ay ku dagaalamayeen ayagoo saandal wata, mararka qaarkoodna macuus wata. laakiin maanta meel fiican baa la soo istaajiyey, taliyaal badan baa isaga dambeeyey. taliyoodawaana nafhurnimadiisa iyo geesinimadiisa isagana runtii waa ammaanaynaa. in dhalinyaro ah oo waxa weeye shaqo fiican dalka u haya. waxaan rajaynaynaa inaan taliska iyo wasaaraddu aysan collowtamin, loolan ka dhex dhicin. loolanku waa midda halkaana dhigay, wax la iska riixanayo sidii jaamac uga tegey oo Jibriil hadda uga tegayo ayaan uga tegi doonaa. sidii taliyaalkaaga horreeyay ay uga tageen ayaad adiguna uga tegi doontaa.
wax loolan la yidhaahdo dalkeenna waxay u danaynaysaa khawaarijtu inay dalka sii joogaan ama hay-adaha kaloo amniga ha ahaato ama shacabka soomaaliya dhammaantiis loolan ma jiri doono iskaashi isgarabsi iswalaalaysi isla shaqayn iyo is-aaminid ayaan abuuri doonaa taliska iyo wasaaradda taasaanan anigu calankeeda wadi doonaayo layguma arki doono anagoo la ficiltamaya taliye ama anoo maaragtay hawl kale oo kale ka dhex sita ciidanka waxaan sixi doonaa logistikadiisa anigu xardheeraan joogay bil iyo xoogaa baan ku sugnaa berigii 2023 markii meelaha qaar laga soo baxay runtii ciidankaas waxaan ogaa labada urur oo halkaas joogtay duruuftay ku jireen iyo dhibaatada ay u qabeen in shidaalku soo gaaro ama raashinku soo gaaro oo mararka qaarkood aan uga gadaynay meeshii aan joognay waxaan sixi doonaa tayada cuntada ay cunaan tayada shidaalkooda inuu ugu tago meeshooda iyo dhammaan wixii caqabado jiray inaan meesha ka hor wareejinno oo ka qaadno hadday caqabado ahaayeen maaragtay wasaaraddu waddo iyo haddii meelo kale ay ka jireenba logistikada soo daahideeda hadday ahayd waxaan garab siin doonaa haddii la yidhaahdo in ciidamada soomaaliyeed ay u dallacaan oo taliyaha iyo taliskaba ay u dallacaan hab meerida oo xildhibaan ama wasiir inta qaado koox qabiilkiisa madaxweynaha inta u geeya yidhaahda halkan jenaraal iga dhig ninka ama taliya iga dhig taas waan sixi doonaa xataa darajooyin qaldan haddii la baxshay